السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا القناة كان هاني إيمان وأنا بقول شين حنان دقن هالكان اللي تعاون سنة وقناة كنا هاني إيمان اسكسون ناخد وناكسن مركلته سواء قاعدة كوب كنا شاب برامج كدوية برامج يعني نوع براتين وبرنامج عصب واحد نوع براتين برامج كنا أرمها بالشدة لكن برامج كنا معتا وكدوية هاي برامج دي هراء وحنا إذا هاي كسر وهذا وجه عصب إيوه markaleeto inta iskugu soo laabanay barnaamijkeena maanta wuxuu noqon doonaa hees aad iyo aad isoo jiidatay ayaanu reaction ka wada bixi doonaa heestaana waxay jirtaa 3 maalin saddexda maalin ee heestaan jirtana maalin kaliya waa aan dhageysanin ima soo marin sababtoo ah aad iyo aad ay isoo jiidatay waxaan jeclaystay inay noqoto heesta ugu horeysay aan channelkeena reaction uga bixiyo aanan idinla soo hor istaago dibna aan ugu soo noqdo channelkeena anagu ahaan doono update insha Allah taala heestu waa heeste iyo fanaanku waa fanaankeen hayga hor dhicina waa jiraan halkan ayaa nooga daari doonaa heestan waxay noqon doontaa heesta oo soo qaada fanaankeen qaaliga ah Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaa yani ka hor dhicin ila dhageysta heestu waa heeste waxaa lagu magacaabaa adiga soo maaha واتنا هستي أنا فرحان waxay ku bilaabatay جو قرح بدن مeel biyo وأد قرح بدن oo fadhiya waaw caadi mahan sinjarka shahina silaabina واو هستا iyo muusikaba kala ma dhaxan waa la isku dheeli tiray labiska ayaa kaaga sii daran iyo waliba meesha aadka u quruxda badan ee heesta lagu qaaday waa hees aad iyo aad looga soo shaqeeyay heestan fiiro gaar ah dadka qaar heesta yani ka horreyn heestaneeto waa hees aad iyo aad looga soo shaqeeyay fanaanka sida uu noogu sheegay heesta waxaa la soo geliyay janaalkiisa Nimcaan Hilaa official music video heestan fanaanka waxa uu noo sheegay inuu hayay muddo 2020 ilaa hadda waxayna cadeynaysaa sida loo duubay iyo waliba sida looga soo shaqeeyay muusiga iyo laxanka iyo erayada iyo waliba fiidiyowga quruxda badan ee isku dheeli tiran laxanka aan caadi ahayn marnaba waatan heesta isla dhageysano oo wada falanqeeyno جو قصة مع قنادي جاي بري عاشق كيسة وحو قادو يا معلمتي جعل كبرتي هستا أنا هسيك كم ترجميسو حلقة بين هسيك كترجميسو أم صح حلقة بين قف كلاته قصيصو سيد لب فنانك يا أبوانك وحو حسام بالشدة مسؤولكين بل مركلاته مثل دعوان إلى لحون أمريكيو ونوك يا ريدودن أديقا كوكاهو وحال تهيدو تيقا أديقا كوكاهو وحال تهيدو adduunkayga yaa salaam erayadan waxaa sameeyay abwaan aad u daayar waliba aan aad u taageero erayadiisana iyo waliba laxamadiisana aan aad iyo aad u jeclahay abwaanka waxaa lagu magacaabaa dab jacayl waa wiil dhalinyaro ah laakiin maskaxdiisa ay aad u sareyso heesaha uu sameeyo 100% haddii aan dhaho 99.9 waxay noqdaan heeso qarxa ee hawada mara sababtoo ah murtida iyo laxanka uu adeegsanayo ayaa waxay ku umada soo jiidanay waan u hambalyeynaya abaan dab jacayl maarin aragaadan qur kama ahaanayo طبعا موسيقى waxaa tumay wiil lagu magacaabo DJ Adam asagana oo hambaleenaya muusiga aad ayuu wanaagsan yahay waxaan ku dhahay teembada
يولبا رياضة ويصل صعدان إنه دوي ما أوكي لكن وحا editing إيه director بس كلا جوندي ميديا برو وأنا دي همبرينا جوندي ميديا برو ما أقوني أرجع إلي براي عشق ذكيسها إلي لها ودنها بيركيو ونقيا ذي ذودن أذيقا كباهو وحا تهيدو كيها أو مارين أرجع غنقل كما أهاني معلن أرقاك أو قرح كما أهاناي إريو ماشا ويكون رمادين إلى جعل انتبه إنما عادة مهان لبسكي سنة إليغانت ولي سبوحها إليغانت نمعان هلاع نمعان هلاع وحكمتها فنانين تدنب فنانين عن كتاغيرو أيو حوغيهاي كوا صفق هورا كجرو أنيغا وحان جعلها هاسيه فنانين تهورا سيدا عمر دولة علي عمر مهدي إلهو نحرستا heesihiisa aad iyo aad ayaan u dhageystaa waanan jeclahay weliba waxaan jeclahay heesaha ammaanta jacaylka calaacalka iyo wixii lamid ah heestaana waxay ka mid tahay weliba nimcaan wuxuu ka mid yahay fanaaniinta u heesa sidii maxaa la dhahaa cumar dhuule cali iyo fanaaniin kale idiin soo wado meeshaan aan ku falaqay doono inta fanaan aan ka hela aniga fanka dambe iyo fanka dhexaba kuwii hore ma soo qaadanaa talo ونقف فكرة دانا قليل رجع استهسانته أدي أنا ورياقي أفكك مدهاي جعيل وركجير وادهو أم بقاتك جديا أفكك مدهاي جعيل وركجير وادهو عادمة على الربي وادهو ودبان كتاغني يونسي يكوكامي واسدا udub kan ku taagniyo nasiib iyo cunkamay waasad ereyadaas ma lays dhahayaa qof dhalinyaro ah oo sanadkan jiro ayaa sameeyay waxaan dhihi karaa abaankaaneed waxaa ku duugan maskax waaye ismalaayaa badsatay dab jecelo saakiinan kaga hormar aniga asaagii inaan kaga hormaro aniga waa iilabin waaw qof walba dabcan wuu jecel yahay inuu asaagiis ka hormaro oo asaagiis ka sareeyo oo asaagiis meeluusan gaarin gaaro markaa gaarta asaagia meeluusan gaarin iyo meesha adiga igsanaysay waxaad dareemaysaa inaa libintaada haleeshay كما دهاي جعي وكجير وادهو بقاتك جديا حكي على الربي وادهو أم بقاتك جديا حكي على الربي وادهو إرجاس أيام واحد كده حياة طبعا سوشيال ميديا مع المهانيتو تيك توك يولي فيسبوك وحلو فلانقينا هستان معنا وسوق هذا dad badan ayaa waxay ka dhigeen siyaasad laakiin nimcaan hilaa waxaa jira horta ereyo fanaaniinta sidoodaba iyo abwaaniinta wax ma qeexaan kuwa dambe ma ka hadlayo ciyaalka xaafadda iska ahoo dhahayo wax ma raba inaan sheego laakiin fanaaniinta iyo abwaaniinta ciyaalka xaafadda iska ahoo iska dhahayo dee iska hadla ma ahan laakiin abwaaniinta oo gabyo heeso gabayada curiyo iyo sheekooyinkii heesaha iyo geeraarada taxda kuma sheegaan si cad uma qeexan waxaa laga yaabaa ayagoo si siyaasad u hadlaya inay ka dhigaan jacayl sidoo kaleetana ayagoo jacayl u hadlaya inay siyaasad ka dhigaan ma fahanteen marka heestaaneeto inkastoo ay u muuqato hees jacayl ah haddana waxaa jira dad u fasirtay heestaaneeto inay dhanka siyaasadda u janjeerto sida ereygan oo kaleeto geediga halkii aan la rabay sida ereygan oo kaleeto ambaqaadka geediga halkii aan la rabay waa dhab udubaan ku taagamiyo nasiib iinkame waasada
udub aan ku taagmiyo nasiib iyo cunto mawaasad asaageynaan kaga hormar aniga waa ilaban marka meeshaas ayaa dad waxay ka dhigtaan si siyaasad ah laakiin horta qof walba haddii aad qurux badan tahay waxaa laga yaabaa waxaa jiro dad adiga ala furxun tahay haddii aa wanaagsan tahay oo saxan tahayna waxaa la jiro dad adiga ala qaldan tahay laakiin mar walba waxa la xukmiyaa Soomaalideenana waxaan ahay ahli yiri ayaa nagu badan laakiin ma xukmino qofka markuu hadlayo mana qiimeeno laakiin haddii anaga aan xukmino oo aan fiirino dhankan imcaan helaa heestan marka oo soo saaray YouTube kaas uu soo galiyay uu dareensanayd inay buuq dhalayn doonto markaas ayuu wuxuu ku soo qoray commentiga ugu horeeya asaga ayaa qoray wuxuuna ku soo qoray heestan waxay keed ka soo gashay halkaas ayaan idin soo saari doonaa heestan waxay keed ka soo gashay helaa music wuxuu ku soo qoray qofka koreey dabcan halkaas ayaan idin soo saari doonaa wuxuu ku soo qoray soo dhawaada bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku xiran Hilaac Music 10 bilood kadib waan isku soo laabanay uu soo ragaal celiyay libaaxi daawasho wacan heestani waxa ay keedka Hilaac Music soo gashay 2020 ayuu yiri marka waxay cadeynaysaa heestan inay siyaasad iyo inaysan ahayn siyaasad iyo marxaladaha xilligan taagan iyo xasaradaha kacsan uu kaga jeedo heestan inay tahay hees jecel ah keedkiisana ay ku jirto wax badan marka waa heestani oo meeshii inooga marka taas ayaad uga qanacisiin taageerayaal marka waa kana heestii oo noo sii socoto ruuxa aanu jecelahay adiga sawmahayga nurka adiga sawmaha ifka ruuxa aanu jecelahay adiga sawmaha indhahayga nuurka u baxa adiga sawmaha dee nuurkaaga indhahayga nuur aan adiga ahayn oo u baxo ayuu taagan yahay wada jacayl ugu dhaafo waxaan taalkii hawadaha qalbigu adiga sawmaha noloshayda dhirkeeda macaan adiga sawmaha itaalkii awoodaha qalbiga adiga sawmaha ma aragtay weligaa qof qalbi jabsan ee meel jiifo xanuunsan jiro kalena ayna haynin ee qalbi jabsan oo qalbi jab u ku dhacay dabcan jacaylka waa awood gaar ah adigoo jiifo oo xanuunsan oo sariirta u saaran ayaa waxaa laga yaabaa erey kaliya inuu ku bedelo oo awood ku yeelo kusoo istaajiyo sidoo kale tan waxaa laga yaabaa adigoo caafimaad qabtay oo ordaysay erey kaliya qalbigaaga inuu awoodiisa daciifiyo oo sariir ku saaro dad badan ayaa u dhinta jacaylka dhedheel ma aha marka awoodaha qalbiga adiga Soomaaliya oo taagan ruuxa aanu jecelahay adiga sawmaha indhahayga nuurka adiga sawmaha taalkii awoodaha qalbigu adiga sawmaha noloshayda dhirkeeda macaan adiga sawmaha noloshayda idilkeed macaan adiga Soomaha dumar hadaan iska jecelnahay amaanta iyo waxaan ku dhahaa marxabeynta complimentiga ina la dhaxday adigoo kale ta adduunka ma jiraba markaas ayay waxa noqonaysaa si dhab ah inuusan ayadoo kale ta adduunka ba jira marka rabo dumarkiina amaana oo koolkooliya amaanta waxa idin kama dhibtay amaana oo waxay tahay u sheega rag badan waxa jiro qalbiga ku qarsado israahay naagtu ku kibri doontaa bari hadaa u sheegtid waxa ay ku tahay laakiin waxa ogaatiin siraan siinaya dumarka waxay ka xanaaqaan waxa ogaatiin hadaa gabadha u sheegtid waxa aad u qabtid iyo waxa ay ku tahay iyo naftaada wixii ku soo kordhisay ay isbedelka ee noloshaada ku saameysay ay gabadhaas ku sameysay weligeed lagama yaabo inay ka tagto sidoo kale tan waxay ku faraxdaa waxay noqon doontaa haddii tahay 40 jir 20 jir mar walba jecelkin wuxuu noqon doonaa mid cusub haddii aad gabadhaada amaantid aad siisid compliment aad tiraahdo nolosheeda hadaa adiga jiri lahayn waxaan reaction ma bixinooya mas 10 aan bixinooya reaction keena aan dib ku soo laabana sawmaha adiga sawmaha
موسيقى النبع عاد معهن وفريعة Daayaha ildoogsiga ka heli uurka aragaaga daayaha ildoogsiga ka hela uurka aragaaga النبع عاد معهن way ku ilmeeyaan markay warki waayaane maxaa ka macaan qof adiga ku jecel oo ku dhaho waanba ku ilmeeyaa adiga dartaa waxaad dareemaysaa awood uu jecelka leeyahay hadduu qof adiga dartaa u ilmeeyo waanba ku ilmeeyaan markay adiga ku waayaan indhahayga markay aragaaga waayaan waanba ku ilmeeyaan oo taageen ololbaa ku shida ruuxo way kula tahay aydayni waxyahan dartaa aadka ugu liitaa ha irdheynin waxyahan dartaa aadka ugu liito yaa waxyahan adiga ugu ku liitaay gacantaada ku jirtaa naftaani ha irdheynin dee dhibaataynin ha ka tegid caadi maahan inaba caadi maahan shabskale daayaha ildoogsiga ka heli uurka aragaaga daayaha ildoogsiga ka helay uurka aragaaga naba caadi maahan war heestaan dhan bilaaya oo ilaa dhammaad adoo dhegeysanaysa oo isdhehaysa weli heesta dhuuxaysid erayadeeda iyo nuxurkeedii heesta adoo weli dhegeysanaysid oo dhuuxaysid erayadeeda iyo nuxurkeeda ayayba saas kugu dhaafaysaa markaasaa dhahay ja ma dhammaata heesti igu soo celi 6 daqiiqo iyo 32 sakin ayay soconaysaa haddana saasay taa waxaa u malaysaa inay 2 daqiiqo tahay heesta macaanteeda adoo erayadeeda kugu socdaan oo dhuuxaysid ayay ku dhaafaysaa way ku ilmeeyaan markay warki waayaane ololbaa ku shida ruuxdo way kula tahay aydayni waxyahan dartaa aadka ugu liitaa واو إنه بعد ما هاستان قف عم جعلهن هذا هدول يستو جعلها كمان وأنا سيدة لا تعرف سيدة لا تعرف كومنتي أنا وصوره كفى أشقر رجع الجروح ضو يبكو بدقي أشقراه لدعي قروح ويبكو بالداخل ورقب فينا لها وتقروح بدن تحي ما فهمت لها وقروح بدن تحي دمر كصومالية أو قروح بدهين بحين يستاهلان سيدان لو عمانو ما أهني اللي أنسي مستاهل بحين يستاهلان اللي ويماني اللي أنسيو ما يستاهلان ربع استجف وأماني أبو أغري يريبو كارا ونحن الباب كان غفو وحيكو كيني wadnahana albaabkaaga fura waxay ku keenay waaw albaabkii wadnaha ayaa loo balaqay waa halkii qadan qaran ee balaqa albaabada balaqa ragow albaabada qalbigeena balaqa waanka astaysto habla adiga ka dhawrtay waana kaa astaysto hablaha adiga kaa doortay dumarka oo dhan oo adduunka joogaba adaan kaa la soo baxay waaw waxaa kaloo cajiib axmed qaaneen sida heesta uu ugu raaxaysanayo waxaa dareemaysaa heesta maskaxdiisa iyo qalbigiisa inay kasoo maaxanayso waxay siinaysaa asaga ku raaxaysanayo heesta sideedana waxaa waaye mataqaana wix adiga kaa gadmo aad adiga ka hesho adiga ku raaxaysato bulshadana kula raaxaysanayaan waxaa jira heeso fanaaniinta iska qaadaan sidoo kaleeto waxaa jira hees kugu soo gasho maxaa la dhahaa qofaa saaxiiba tihiin oo qiso ku dhacday ku dhaho heestaan ii qaado kaleeto qofkii maroweysiyo sidaas heesta aa ugu qaaday adoo heesta ka helin sidoo kaleetana waxaa jirta hees qofa isku dhiirtihiin oo saaxiibtihiin abwaantihiin inuu kuu dhiibay oo muddo badan heestaas ahaysay oo istiraahad iska soo saaray heesta ma noqonayso markaas heestaas sidee uma qurux badnaanayso amana macaan badnaanayso sida heestaan oo kaleeto iyo heesaha lamidka ah abwaan fanaanka markuu heesta doorto uu yiraahdo heestaan alileh waan ka helay ama hees noocaas ii samee oo heesta asaga ku raaxaysto bulshadana way kula raaxaysanayaan laakiin marka qofka u qaado heesta
wax badan haysatay iska qaad ama u qaado qofkan saaxiibka ah ku xishmeeyo oo heesta u qaad uu ku dhiibtay waxay noqonaysaa micnaha waxaa jiraan heeso badan oo qof saaxiib ah qof kale u dhiibo ama heeso wax badan oo qofka keedka ugu jira sida heestaan oo kale taad 3 sano ku dhawaad keedka ku jirtay aad u macaan badan laakiin heeso qaar waxaa jiro fanaanka uu ku raaxaysanaynin taasna waxay sababaysaa in bulshada ku raaxaysanin heestan waxaad dareemaysaa marka macaankeeda inuu nimcaan aad asiga ugu raaxaysanayo sidaas ayaana dhalisay inay macaanaato oo bulshadana dhagahooda ku raaxaystaan bal hadalka aad ku badiyay waa reactionka ugu horeeyay ee dulqaatay aqeeg ugu deeqay way ku amaanay oo kugu akhriyay ereyo ku gaara wadnahana albaabkaaga furay ubaxyo ku keenay aaninka astaysto hablaha adiga ka dhurtay mararka qaar waxaa dareenta mataqaanaa ma ogi ragga aragga soo hadla horta wayna shaaxda ma ogi ragga horta sida yihiin laakiin marka haweenahay hees kasta waxaa u malaynaya in anagana loo qaaday marka heesta ay tahay hees jacayl ah hees macaan hees oo maxaa la dhahaa sheeg ammaan ah waxaa u malaynaa anaga in loo qaado heestaan ay naga hadlayso sidoo kaleetana sirta haweenka waxaa maanta u faafinaya sidoo kaleetana hal mid aad kugu daraa marka mid kale jiraay sidoo kaleetana gabadha markay careysan tahay hees walba waxay u malaysaa oo carag ka hadlayso oo daadis ka hadlayso in ayada qaadayso heestaas oo way dhex gasho waa dhex galnaa ma fahamtay heesta markaa dhageysanayna ama markaa qofka u qaadin ama markaa meel kasoo qorin waxaa umalaynaa inaa heesta anaga qaadoonobo oo fanaanka heesta iska lahaana ifka ruuxa aanu jeclahay adiga soomaa indhahayga nurka u baxaa adiga soomaa oo kooraska hore aan kugu sheegay inaba caadi maahan hees walbana ila fiirsada hees walba oo macaan badan kooraskeeda macaan heesaha inta ugu badan ee tiktok ku qarxana waxa waaye kooraskeeda waxaa jira heeso badan oo markaa youtube-ka imaada dhageysa heesaha maba arkin goormee soo baxda markaa dhegeysato kooraska la gaaro aad dhegeysa heestan waa arkay tiktok aan ku arkay meesha hees walba waxa ugu macaan oo laga soo dhiso waa kooraska kasoo qaadanayaan dadka oo tiktok joogo intaas ayaa soo dhigaya intaas ayaa heesta ka qarxayso marka heestan horta bilow ilaa dhammaad caadi maaha laakiin kooraskeedana dareen gooni u leeyahay taalkii hawoodaha qalbigu adiga soo maaha noloshayda dhirkeeda macaan adiga soo maaha ifka ruuxa aanu jeclahay adiga soo maaha ifka ruuxaan ugu jeclahay adiga soo maaha indhahayga nurka u baxaa adiga soo maaha su-aalan ku weydiiye indhahaaga nuurka u baxayaa waaye commentiga noogu soo qor aan aragno nuurka indhahaaga inuu youtube ka daawaday in kale بلي سبسكرايب نو صار channel keena dib ayaan iskugu soo laabanay update ayaan ahaan doonaa insha Allah to ilaa karaan noqdo marka aad mahadsan taalkii awoodaha qalbigu adiga soo maaha noloshayda dhirkeeda macaan adiga soo maaha adiga soo maaha marka dadka youtube-ka kala kicin lahaa adinka soo maaha bili subscribe noo saara channelkeena ha laga yaabo marka labaad aan video dambe soo dhigi doono aan de meel fiican asxaabteyda adinku gaarsiina arko aad iyo aad u mahadsantihiin haddaan intaa nala soo gaarteen fadlan ii dulqaato haddaa hadalka idinku badiyay iyo haddaa micnaha reactionka ugu horeeyay dee cimaamada ii saara idin dhihi lahay shaahina halkaas aan uga sii socdo aad iyo aad mahadsantihiin isku soo noqdno dambe oo xiiso leh iyo barnaamijyo badan ma aha barnaamijyo reaction oo keliya sheekooyin qisooyin waxaan ku dhahay waxyaabo fara badan oo bulshada dhexdooda ka dhaco sidoo kale dhiirigelinteeni aad iyo aad mahadsantihiin deehani la arko faraha ka shaqaysiiya mar kaleeto waa walaashii xanaan degan oo idin leh isku soo noqod wanaagsan ha idin wacnaado waqti walba oo idin tahay aad ayaad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu